الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. darisku wuxuu ka bilaabmayaa aayadda 112 ee ka mid ah suuratu tawba. ilaahay wuxuu aayadaha hore ku soo xusay tabaaraka wa tacaala dad isaga iib la galay. iib baa halkaa hore uu ka soo sheegay iyo heshiis dhacay oo ilaahayna uu ahaa ka wax iibsanaya, dadka mu'miniinta ahina ay ahaayeen kuwa wax sii iibinaya. markaa ilaahay waxa uu ka iibsanayay naftooda iyo maalkooda si ay ugu bixiyaan fii sabiilillaah. iyaguna waxa ay bedel qaadanayeen janno dadka mu'miniinta ah. dadka mu'miniinta ah haddaba sifooyin inay leeyihiin baalkan ilaahay uu ku xusayaa ummadaha kale ay kaga duwan yihiin. sifooyinkaasoo aayaddani ay sheegtay 7 isku xiga. attaa'ibuuna buu lahay hum dadka mu'miniinta ahi attaa'ibuuna kuwa ilaahay usoo noqonaya weeye oo u toobad keenaya. alcaabiduun waa kuwa ilaahay keligii caabudaya. alxaamiduun kuwa u mahadnaqaya weeye ilaahay. assaa'ixuuna kuwa soomaya weeye. alraakicuuna assaajiduuna waa kuwa rukuuc iyo sujuud la imanayo salaada si wacan u tukanaya. alaamiruuna bilmacruuf waa kuwa waxa wanaagsan dadka faraya. wannaahuuna cani ilmunkar shayga xunna dadkay u diidayaan. waalxaafiduuna lixuduud illaah ilaahay xuduuddiisana way ilaalinayaan. wabashir ilmu'miniin dadkaa ilaahay rumeeye u bushaaree nebi maxamedow. sifooyinkooda waxaa ka mida inay leeyihiin shucuur iyo dareen aada u sarreeya oo ay kula dhaqmayaan ilaahooda. markaasay ogyihiin dunuubta cid dhaafta ah inay isaga uun tahay. sidaa darteed bay u toobad keenayaan goor walba oo ay usoo laabanayaan. nebi maxamedba siduu ku tarbiyeynaya calayhi salaatu wasalaam. waayo qofka mu'minka ahi dunuubta dareenka u leeyahay baa weyn. buur kusoo dumaysoo kale ayuu u arkaya, halka munaafiqu u arkayo doqsi sankiisa maro sidaa uu gacanta ku yidhi oo kale. waxay ka xoroobeen min cibaadati alcibaad wa akhlasuu cibaadata allahi waxdah laa shariika lah. inay addoommo u noqdaan bay iska ilaaliyeenoo ilaahooda ayay addoommo u yihiin. xamdigay badinayaanoo waxay garanayaan nicmada masderkeeda iyo halka ay ka soo fulaysaa in ilaahay unay tahay. markaasay mahadnaqa badinayaan. intan kale sifooyinkana waxay la xidhiidhaan xagga takliifta iyo xilka la saaray addoomaha oo ah cibaadaadka laga doonayo. soomkii, salaadii ayay la imanayaan. marka assaa'ixuuna waa siyaamka ayaa la yidhaahdaa saa'ix qofku marka uu saa'im yahay oo waxa uu dhex dabaalanayaa khayrkii. waxa uu yahay markaas
mid fadli aad iyo aad u weyn helaya. muslimaatin mu'minaatin qaanitaatin taa'ibaatin caabidaatin saa'ixaat. dumarka nabiga markuu ilaahay sifeynaya waa kuwa soom badan buu soomaya. mar kale uu nabigu lahaa siyaaxatu ummatii aljihaadu fii sabiili illaah. ummadaydu halka ay dawaafayaan ee ay u dalxiis tegayaan waktigoodana ay ku bixinayaan waa jihaadka. labaduba waa waxyaabaha ilaahay ku waajibiyey. rukuucda iyo sujuudda halkan ilaahay u xusay oo dee salaadii ka jooga. labadan meelood sida gaarka ah waxaa ilaahay ugu xusayaa arkaanta salaada ay ugu fadli badan yihiin. waa laba qof oo markuu laba meelood weeyo qofku marka uu ku jiro ilaahay ducada uu ka aqbalayuu nabiguna lahaa calayhi salaatu wasalaam ducada badiya. maxaa yeelay xubnihiisa halkii ugu sharaf badnaa buu ilaahay u dhigayaa oo u sujuudaya. arrintu intaasoo keliya maaha inuu qofku naftiisa wanaajiyo iyo shucuurkiisa iyo dareenkiisa uu ilaahay la leeyahay maaha oo keliya, laakiin waxa qofkii laga doonayaa muslimka ahaa inuu islaaxiyo mujtamacii iyo akhlaaqdii iyo arrimihii siyaasadda intaba. markaasaa ilaahay uu ku soo daray alaamiruuna bilmacruufi wannaahuuna cani lmunkar waalxaafiduuna lixuduud illaah. wanaagay dadka faraan xumaantana way u diidaan, wixii laga xarimayna in la gudbo oo lala yimaado ilaaliyaanay dhowraan. naftoodana way ka ilaaliyaan, dadka kalena way ka ilaaliyaan. oo macnaha dareenka ku jira qofka mu'minkaa waxa weeye haddaad keligaa wanaagsanaato wax macnoo badan samayn mayse ummaddu ha kula qabto wanaagga. saasuu ku xisaabtamaya. dadka noocaasa u bushaaree buu ilaahay leeyahy. maa kaana uma habboono uma bannaana linnabiyi nebi moxamed iyo waaladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyey an yastakfiruu lilmushrikiina gaalada inay ilaahay weydiiyaan dembi dhaaf walow kaanuu haba ahaadeen kuwaa gaalada ahay ulii qurbaa dad xigta ah oo iyaga dhowaalow ah min bacdi maa tabayana lahum intuu u caddaaday dadkaa mu'miniinta ah annahum asxaabu ljaxiim kuwaa gaalada inay naartaa jaxiimo gelayaan intay u caddaatay kadib inay ilaahay dembi dhaaf u weydiiyaan maaha. wamaa kaana istikfaaru ibraahiim nebi ibraahim dembi dhaafkii uu u weydiiyey liabiihi aabbihii u weydiiyey muu ahayn ilaa can mawcidatin ballan unbuu fulinayay. ballan ayuu u fulinayay aabbihii wacadahaa iyaahu oo aabbihii u qaaday. falamaa tabayana lahu kolkay nebi ibraahim u caddaatay annahu caduwun lilaah inuu aabbihii ilaahay cadow u yahay u gaal yahay tabara'a minhu wuu iskaga tego waa ka bari noqdu ka baxay. ina ibraahiima nebigaa nebi ibraahim laydhaah la awaah mid taah badan buu ahaa, cabsidu ay ku badantay ilaahay u ka cabsanaya. xaliimun mid dulqaad badanna waa aha. sifada kale halkan ilaahay uu ku xusayaa waxa weeye dadka mu'miniinta ah tilmaamahooda waxaa ka mid ah inay ilaahay iyo rasuulka iyo dadka mu'miniinta ah ay muwaalaad la leeyihiin, xigto ay ka dhiganayaan, iyaga ay ku xidhiidhsan yihiin kuna tiirsan yihiin. laakiin shaydaanka iyo dadka shisheeyaha ah ee isaga ka agdhowe raacay sida kuwaa ilaahay ka fallaagoobay oo kale dee kuwaa weli kama dhigtaan. wilaayadan la sheegayaana waxa ay tahay kalgacalkii iyo ku tiirsanaantii iyo gargaarka raadintii. intaasoo arrimood dadkan mushrikiintaa midna kama baadi doonaan. hadday xataa dhacdo inay xigto yihiin ama xidhiidh adduunyo oo wada shaqaysi ay leeyihiin dee waxaasoo dhammi ma keenayaan kalgacalkii iyo muwaalaadkii iyo xidhiidhkii ma keenayaan. waa maslaxo iyo dana gaarahoo la kala dhammaysanayo weye. markaa waa laba arrimood oon la isku khaldi karin. sifada qofka mu'minkaa baynu ka faa'idaysanaynaa halkan inay tahay inuu ogsoon yahay ilaahay inuu weli u yahay allahu waliyu aladiina aamanuu, nebigu inuu weli u yahay calayhi salaatu wasalaam oo naftiisa uu kaga dhowyo inuu ka jeclaado ay tahay, iyo dadka mu'miniinta aba. waa wilaayada maanta aynu odhan karno dadka muslimiintaa way ka luntay tii dhexdooda ahayd oo qayb badan oo ka mid ihi waxaabaad moodaa gaalada inay muwaalaadkii la leeyihiin. sababta aayadda ku soo degtay waxayd nebiga calayhi salaatu wasalaam ninuu adeer ahaabaa jiray, abu taalib baa la odhan jiray. ninkaasi aad buu u difaaci jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam, gaalada wuu ka celin jiray isagoo tolnimo iyo xigtanimo ku difaacaya. nebigu dabeed aad waxa uu isugu dhibay u jeclaystay ninkan wanaagga badan u samaynaya inuu islaami lahaa oo uu ku biiri lahaa dadka mu'miniinta ah. wuu ku waday oo uu karsiin waayey. arrintu waxay soo gaadhay iyadoo abi taalib geeridii ay ku timid. markaa nebigu waxa uu lahaa kelmad adeer igu dhawaaq
aan ilaahay kugula doodo maalinta qiyaamaha oo aan idhaahdo dee ilaahay ow ninkani waa ashahaad laa ilaaha ila allah ku dhawaaq abijahal iyo niman kalea kasoo ag dhowaaday ninkii abitaalib oo waxay idhaahdeen abitaaliba oday weyna waad ahayd in badanna waad soo jirtee arrinkaaguma maantuu sii gebagaboobayaad ceeb qaadan doontaa awowyaashaa diintoodii gaalnimada ahayd aad ka tegi maya buudhoo sidiibuu ku dhintay nebigu waxau lahaa calayhi salaatu wasalaam ninkaas siduu wanaag ula jeclaa awgeed ilaahay baan dembi dhaaf ku weydiin doonaa haddii aan la ii diidin buuri dabeetana ilaahay baa aayadda soo dejiyo oo u diiday aayad kalena waxaa rabbi uu ku uhi innaka laa tahdii man axbabt walaakina allaha yahdii man yashaa adigu hanuunin maysid nebi maxamed oo ciddaad jeclaatee ilaahay baa cidduu doonaya hanuuninaya marka aduu waddada khayr kalaa tusaysaa laakiin hanuun qalbigooda kuma abuuraysa halkanna markaa rabbi waxau ihi uma bannaana umana habboona nebi maxamed iyo dadka mu'miniinta ahi inay gaalada u weydiiyaan ilaahay dembi dhaaf xigtaba ha ahaadeen intii ay u caddaatay inay naarta jaxiimo gelayaan su-aal la isweydiinayay buu ilaahay ka jawaabay qur-aanka waayo dee dareenka addoomahoo dhan buu aada u warhayaa iyo axwaashoodao dhan oo nebi ibraahim basowkii aabbihii aazara ilaahay dembi dhaaf u weydiiyey qur-aanku uu sheegay dadka qaarkood baa taa yidhi markaasaa rabbi uga jawaabay taa ilaa qawla ibraahiima liabiihi la astakfiranna lak sawkaa dembi dhaaf ilaahay weydiinaya baa leh markaa ilaahay baa ka jawaabo waxau idhi wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiihi ilaa can mawcidatin wacadaha iyaah ballanqaad ba ahayd aabbihii uu u qaaday oo uu ku yidhi ilaahay baan dembi dhaaf ku weydiin doonaa sida aayaddiiba ilaahay uu ku xusay salaamun calayk saastakfiru laka rabbii innahu kaana bii xafiya markuu eriyey ee uu mastaafuriyey nebi ibraahim aabbihii uu ibraahim eriyey ee uu ku lahaa wahjurnii maliyan idhaaf dhagax baan kugu diliyay muddo dheer idhaaf kol haddaad diin cusub keentay ayuu dabeetana yidhi aabba aan isbaadbaadinna bal ilaahay baan dembi dhaaf ku weydiin doonaa ballantaasunbuu oofinayay markii ay u caddaatay annahu caduwun lilaahi tabara'a minhu markay u caddaatay inuu cadow ilaahay yahay oo gaal yahay buu iskaga cararay kana beri noqday nebi ibraahim awaah buu ahaa mid in badan ilaahay u toobad keenoo xaliima oo dulqaad badan marka awaah waa mid taahiisuu badnaayoo cabsi badan buu ahaa wamaa kaana allaahu rabbi ma ahaanin liyudilla qawman qolo ilaahay kuma baadinnimo xukminayo bacda id hadaahum intii uu hanuuniyey kadib xataa yubayina lahum ilaa uu u caddeeyo maa yattaquuna waxay ka cabsanayaan ina allaha ilaahay bikulli shayin caliim wax walba isaga ogsoon ina allaha lahu mulku samaawaati waalard ilaahay waxa u sugnaaday lahaanshaha samooyinka iyo dhulka yuxyi wa yumiit wax walba wuu nooleeyaa wax walba isagaa dila wamaa lakum idinma sugnaanin dadow min duuni illaah inta ilaahay ka sokaysa min weliyin difaace idinka difaaca dhibka ma lihidin walaa nasiirin iyo mid idiin hiliyo doona waxaa dhacday dadka muslimiinta ah qaarkood baa xigtadoodii gaalada ahaa ilaahay dembi dhaaf u weydiin jiray markii aayaddani ay soo degtay bay yidhaahdeen dee talow maxaynu ka yeellaa gefkaa hore inaga dhacay ilaahay markaa wax hore oo tegey inaanu dadka u qabanaynin buu xusay oo waxau idhi wamaa kaana allaahu liyudilla qawman ilaahay kuma baadinnimo xukminayo oo inay lumeen kama soo qaadayo dad intii ay hanuuneen kadib ee weliba aan loo caddaynin waxay iska dhowrayaan laakiin qofkani inuu hallaabay waxa ilaahay uu ku qorayaa marka uu u caddeeyo shaygan ee uu sameeyo haddana xataa yubayina lahum maa yattaquun jeeroo u caddeeyo waxay ka dhowrsanayaan laakiin wixii ay iska ilaalin lahaayeen kolka loo caddeeyo ay sameeyaan kolkaasuu ilaahay qofkii inuu hallaabay ku xukumaya ilaahay baa wax walba ogsoon oo ka warhaya marka arrinkiinani waxa uu ahaa intii aan la idin farin inaad ka dheeraataan kuwa istikfaartooda ilaahay inuu dembi dhaafka ehel u yahay huwa ahlu taqwa wa ahlulmakfira oo uu isagu yahay ka addoommaha caawin kara saacidi kara cadaabi kara inuu intaasoo arrimood awood u leeyahay buu halkan uu ku xusay dabeedna waxau ihi lahu mulku samaawaati waalard lahaanshaha samooyinka iyo dhulkuu iska leeyay cidduu doono u abuuraa cidduu doonana waa dilaa kuu doono weli buu u noqdaa kuu doonana nasiir kuu doonaana intaaba waa ka waaya gargaar iyo hilimaa toona kama helo arrimahan oo dhammi waa aayado kawniya oo akhriyi karaya qofka mutacalimka ah iyo ka jaahilka ah labaduba inuu ilaahay wax nooleeyo waxna dilo cirka leeyahay dhulka leeyahay markaas
kuwaa dadku aanay ku muransanayn buu ilaahay daliil ahaan u keenaya. aayaduhu waxay ka warramayeen in fara badan dagaalkii sanadii 9aad nabigu calayhi salaatu wasalaam uu qaaday ee la odhan jiray Tabuuk uu ku duulay nimanka reer Yurub. kadib intii uu maqlay inay iyagu soo duuli doonaan ama ay ciidan 40 kuna soo ururiyeen, markaasi aan Madiina loogu iman, ummadda islaamka dhexdoodana dagaalku aanu u dhaqan, siyaasadii Nabi Maxamed ee wanaagsaneyd baa calayhi salaatu wasalaam in cadowga halkiisa loogu tago. waxaa daba dagaalkaasi iyo xaaladiisa ilaahay uu aad u soo qiimeeyay oo kaga soo warramay suuradan bara la yiraahdo dhexdeeda. dadkii ka hadhay iyo xaaladahoodana aad buu uga warramay. kuwii haddaba dagaalka ku jiray dareemadoodii iyo gafafkii ka dhacay ayaa halkan ilaahay uu kaga warramo. rabbi waxa uu laqad taaba allah, ilaahay uu ka tooba aqbalay cala nabiy nabi maxamed iyo wal muhaajiriina, asxaabtii reer maka iyo wal ansaar, asxaabtii reer madiina, aladiina qolyahaasoo ittabacuuhu nabiga raacay fii saacati alcusrati, saacadii adkayd, xaaladii adkayda dagaalka ah, min bacdi maa kaada, intii uu u dhowaaday kadib, yaziiqu ina uu leexdo quluubu fariiqin minhum, qaar iyaga ka mid ah asxaabta quluubtooda intii ay leexan gaadhay kadib ayaa ilaahay ka wada dhaafay wixii gafahaa. uma taaba calayhim, ilaahay waa ka tooba aqbalay mar kale. innahu ilaahay bihim iyaga ra'uufu raxiim, aad buu ugu naxariisanaya, waa usii naxariisanaya. waxaa dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu dee nimankii munaafiqiinta ahaa markii ay u yimaadeen ay yidhaahdeen dagaalkaan ka hadhnee noo fasax, iyagoo cudurdaara keenay. intaanu aadba u hubinin inuu dee daahirkooda u raacayo uu isaga dhaafay, uu iska fasaxay. taasaa ilaahay uu ka dhigay sidii waxuu dambaabay oo kale. markaasaa ilaahay uu yihi cafa allaahu cank lima adinta lahu, ilaahay waa kaa dhaafay maxaad ugu idantay. markaa toobadda nabigu taasun baabkeeda wey. muhaajiriintii ansaartana dee marxalad adag baa soo martay. cumar binu khadaab baa sawiray calayhi salaatu wasalaam tilmaantuu dagaalkaasi lahaana inoo xus. markaa waxa uu lahaa waanu soconnay, saxaro adagna waa marnay, waktiguna kulayl daran baa jiro, kaliil bay ahayd, roobna ma jirin, oo dee 610 kilomitir bay madiina u jirtaa meesha la yidhaahdo Tabuuk ee lagu dagaalamayo waqooyi ka xigta. nimanka reer Yurub baa waqtigaa haystay oo ardu Shaam bay ahayd. dabeed waxa dhacaysay buu leeyahay in mid anaga naga mid uu maleynayay qoort inay go'aysaba, macnaha qoortu inay qofka kow odhanayso haraa darteed. markaa ragga qaarkood geeli ay fuushanaayeen bay qasheen, dabeedna waxay cabbeen shayga usmiirka la yidhaah. waa usmiirkii Soomaalidu berigii hore ay cabbi jireen marka ay biyo waayana dee qofku haraad ka baqdo. markaasaa bal uurku jirtii iyo calooshaanu ku dhajin jirnay bal in qabow aanu ka helno. waa cumar binu khadaab alkhaliifa athaaniya, ummadda muslimiinta madaxoodii labaad weeye intuu nebigu ka tegay kadib. iyaday xaaladdu sidaa u adag tahay ayaa dadka qaarkood dareen baa galay. waabay qaarkood ku yaa sheekaysteen ay leeyihiin war haddaynu xaq ku sugannahay waxaanoo balaayi mala inaguma dhaceene iyo haraadkan iyo mashaakilkani waa sidee arrinkeen. waa taa ilaahay uu tilmaamay le isagaa dareenka ka warhaya uu leeyahay qur-aanka intuu ku xusay ilaa qiyaamaha la akhriyayo intii ragga qaarkood qalbigooda uu leexan gaadhay kadib baa ilaahay. abubakar baa nebiga u yimi oo lahaa waa lagugu yaqaanay duca deg deg loo aqbale bal ilaahay noo bari. ma tiri buuhi abubakarow. gacmuhu markaa nebigu kor u taagay iyadoo qoraxdu cirku aanu mid daruura lahayn. dabeedna ilaahay buu roob bariyey, maraqaa markaa rabbi uu ka furay. ciidamadii muslimiintu intii ay deganaayeen ayaa ilaahay roob ku joojiyey. dabeedna halkiibay cuudkiina cabsiiyeen, iyaguna cabbeen biyihii ay si walba u dhaansadeen. waa mucjizo nebi sala allahu calayhi wasalam. marka halkaa ilaahay waxa uu ku tilmaamay in asxaabtaasi towbadda ay ehel u ahaayeen, sababtoo waxay raaceen fii saacati alcusrati, wakti adag oo rag uu kala hadhay, oo ciddii daciif ahayd iyo munaafiq oo dhami ay dumarkii iyo maatida dhexdoodii ku hadheen. innahu bihim ra'uufu raxiim, sidaasaa ilaahay addoomaha ugu dembi dhaafaya, aadna uu markaa makfiro fara badan u siinaya cidda isaga ku xidhan. وعلى الثلاثة صدحدين إلهي وكتوبا أقبلا الذين صدح ذاس خلفوا للدبلغي توبة دودة حتى إذا ضاقت عليهم إلهي كعرير الأرض للك بما رحبت يضا واسعة يهيد للك بعرير كل نقط
wadaaqat calayhim anfusuhum waxa cidhiidhi ku noqday naftoodii oo waxay dareemeen dayq fara badan oo danigoodii iyo waxa adkaaday markaa dareenkoodii wadannuu waxay yaqiiniyeen allaa malja'a meel loo ciirsadaa inaanay jirin min allah ilaahay meel looga cararo inaanay jirin ilaa ilayhi isaga oo loo fakada mooyaane ama la magan gala mooyaane uma taaba calayhim wuu ka tooba aqbalay liyatuubuu si ay markaa albaabkii toobadda u galaan buu ugu furay ina allaha ilaahay huwa isagu attawaabu araxiim mid toobad aqbal badan weeyaan una naxariista awliyadiisa yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow ittaquu allaha ilaahay ka cabsada wakunuu maca asaadiqiin dadka runta sheegana la jira raggaa saddexdiiba run bay ku nabad galeen saddexda halkan ilaahay xaaladooda uu ku xusay si gaara u xusay waxay ahaayeen qolo tilmaantooda aynu kusoo horumarnay aayadda 106 ayay nagu soo dhaaftay tilmaantooda wa aakharuuna murjawna liamri illaah dad ilaahay uu toobadda ka aqbalay buu soo xusay iyo qaar uu cadaabayo waa dadkii markii ka hadhay ee dagaalkii tabuuk la qiimaynayay saddexna arrinkooda waan dib dhigay buu ilaahay ku yidhi aayaddaa hore saddexdii baa marka halkan uu ku xusay mid waxaa la odhan jiray kacbu bnu maalik midna malaaratu bnu rabiic midna hilaal ibnu umaya saddex saxaabi ba ahaana waa wanaagsan munaafiqiin iyagu may ahayn laakiin sababta ka reebtay dagaalkaa inay u baxaan waxay ahayd iyada oo ay ku yar neeraysteen un maalkii iyo maatida dhexdoodii oo baylaha badan oo istusaysay sidii ay isu lahaayeen bal hagaajiya ayuu nebigu goostu anba baxay calayhi salaatu wasalaam markii rasuulku uu soo noqdayna waxba kamay qarin laakiin runtii oo sideedii ayay u sheegeen nebiga in wax ay daliishadaan iyo waxay ku marmarsoodaan midnaba aanay jirin ay gaf cad galeen sidaa darteed ilaahay uu tooba u weydiiyo markaa nebiguna waa ku mabsuuday oo ilaahay buu u baryay dabeedna 50 habeen kadib waa laga aqbalay toobadii markaa saddexdaa nin arrinkooda waxaa ka warramaya mid ka mid ahaa oo kacbu bnu maalik ahaa qisadoodana kolle inaynu wax yar ka xusno way tahay kol haddii ilaahay baa halkan uu ku xusay oo si gaara dee arrinkoodii uga hadlay kacbu bnu maalik waxa uu leeyahay radia allahu canhu waxaa dagaalkaa tabuuk laydhaa wakti kaliila buu dhacay oo roobna aanu jirin midhahu laakiin ay bislaadeen beeruhu harhkana dadku ay aada ugu baahi qabaan aniguna dagaalkaa isaga ah wax gaboodfalahoo aan markaa wax aan sabab ka dhigtaa muu jirin laakiin gaadiidkii aan fuulayeyna waan haystay sahaydii waan helayay waxaan isiri buuhi bal horta markuu nebigu yaro anba baxuu halkaa dhexe sii gaadhaad gaadhi doontaa ee iska sug haddana waxaan isiri markuu meel dhexe maraya ayaad ka daba tegi sidiibuu kuba goostuu cadowgii ku gaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam anigana mushkiladu waxay igu noqotay buu lahaa markaan madiine kusoo hadhay waxaan arki waayey waxay la noocaba dadkii meesha kusoo hadhay ilaan iimaanka ayaa diraya ummaddan iyada oo duubacas dabada ka kaxaysa oo ciidamada u qaybsan aan loo dirin iimaankooda duubacas u ahaa markuu nebigu istinfaar sameeyey ummadda amray inay jihaad u baxaan cidina may hadhaynin dee dadkaa liita mooyaane markaa meeshii waxaa kusoo hadhay madiine buu leeyahay dad maatiya qaar curyaamiin iyo naafaa iyo qaar aan iskuba qolo ahayn oo iyaguna munaafiqiin ahaa kuwaasna dee ila nooc ma ahayne xaaladoodu mid gaaray ahayd taasaa igu warwar badnayd buu lahaa markuu nebigu tegey goobtii dagaalka waxba kamay qabsoomayn iyadoo ciidamadu dee aad ay u fara badnaayeen haddana waxau yihi war ninkii kacab bnu maalik la odhan jiray rag iskuma jire ninkii mee wuu hadhay baa layidhi ninkaas taalladii layga bixiyay way kala duwanay arrinku wuxuu sii adkaaday markii layidhi nebigaa soo noqonaya calayhi salaatu wasalaam oo soo socda markaasaa dhibaatoo dham igu soo xaadirtay bal maxaad kaga badbaadi doontaa ninka nebigu ma xidhayo mana dilayo laakiin dareenka hayaa waxa weeyaan kii iimaaniga ahaaba haya oo waxa uu isleeyahay talow cadaab maad mutaysan talow maxaad ka yeeli doontaa canaanta rasuulka waxyaabahaasaa ugu daran oo dareenka qofku oo ka qabo qalbigiisa ayaa ka daranka jidhka runtii markaa waxaan ka fikiray inaan cudurdaar sameeyo sida dadkan munaafiqiinta ah oo aan marmarsiiyo sameeyo haddana kii waan iska daayay runtii ayaan u badheedhay markuu nebigu yimid
ayaan u tegey dabeedna wiilka caddeeyey waxau ihi kacabow maxaa ku reebay waxaan u sheegay nin doodiisu ay aada u badan tahay oo fasiixa inaan ahay sidaa darteed cid aan isaga ahayn maanta haddaan soo ag fadhiisan lahaa inaan ka bixi lahaa waxay reebay ma jira baan ku idhi dee gefna waan galay tabaabushahaygai oo dhanna waan haystay toobbuu baan ilaahay ka sugaya inuu iga aqbalo nebigu waxau lahaa markaa bal arrinkaaga dee ilaahay intuu go-aan ka gaadhaya iska fadhi 50 habeen baa markaa laga karantiimo laga dhigay hadalka oo la yidhi 3 nin yaan lala hadlin 40kii habeen hore xaaladdu saasay ahayd 10kii habeene dambena waxaba loogu daray dumarka oo waxaa la yidhi dumarka laftoodana ha ka durkeen oo ganaax baa isna laga dhigay markaa 2 shahwaa laga manciyey 2 rabitaan oo ay doonayeen shahwatul kalaam wa shahwatul jimaac labadaasaa laga manciyey tegidda dumarka iyo la hadalkii lala hadlayay caburiskaasaa ku dhacay intaa kadibna aayaddanaa soo degtay ilaahayna waa ka tooba aqbalay halkaa waxa aad arkaysaa qofku hadduu la dareen noqon waayo ummadda islaamka cadowgoodana meel uga soo jeedi waayo oo uu iyaga la noqon waayo mid la dareena runtii cadowgana la difaaca dhibkaasuu yeelanaya iyo xaaladdaa gaarka ah markaa 3 nin ee ilaahay halkan uu kaga hadlay waa 3daa markaasaa ilaahay uu tilmaamay in dhulku uu cidhiidhi ku noqday naftoodiina ay cidhiidhi ku noqotay laakiin iimaankooda qarada le awgeed baa waxay maleeyeen meel loo cararaa inay ilaahay uun tahay uu ka tooba aqbalay dadka mu'miniintaabaa ilaahay uu siiyey talo weyn dadka runta sheega la jira buu ilaahay leeyahy ilan kuwaasiba run bay ku nabad galeen ummaddan in fara badan baa rabbi subxaanahu watacaala uu ka soo warramay mawaaqifta la gudbana la doonaya inay qaataan waxaa kale oo rabbi uu soo qiimeeyey soona tilmaamay xaaladooda dadkii ka hadhay dagaalkaa isaga ah ee tabuuk la yidhaahdo iyo noocyada ay ahaayeen qayb markaa iyagu munaafiqnimo ay reebtay nebigana u cudurdaartay calayhi salaatu wasalaam cudurdaar beena iyo dad iyagu mu'miniin ahaa laakiin cajsi unu reebay dadkaa mu'miniinta ee wanaagsanaa iyagu hadhay intii lagu yaro adkeeyey kadib towbadoodii la aqbalay waa soo marnay sida Kacab binu Maalig iyo qolyaha la midka ahaa dadka ayaa guud ahaan ilaahay ula hadlayaa waxa uu ma kaana ma banaana li ahli almadiina reer madiina iyo waman xawlahum dadka hareerahooda oo mid al-acraabi reer baadiyaha an yatakhallafu inay ka hadhaan can rasuulillaahi nebi maxamed oo baxay inay iyagu soo hadhaan ma aha walaa yarqabu inay jeclaadaanna ma aha bianfusihim nafahooda inay jeclaadaan can nafsi naftiisa inay ka jeclaadaan daalika jihaadkaa waxaa loo farayaa iyo bixidda ah biannahum iyaga laa yusiibuhum ma gaadho oo kuma dhaco dama'un harraad walaa nasabun tacab iyo dhibaatana ma soo gaadho walaa makhmasatun gaajana kuma soo gaadha fii sabiilillaah jihaadka walaa yada'uuna isma taagaan mawdi'an goob yaqiidu lkufaara gaalada cadho gelinaya walaa yanaaluuna min caduwin cadowna ma gaadhsiiyaan naylan waxyeello ilaa intaasoo arrimood hadday sameeyaan kutiba lahum waxaa loo qoraa bihi shaygaa soo gaadhay camalun saalix camal wanaagsan baa loo qoraa ina allaha ilaahay laa yudiicu ma lumiyo ajra almuxsiniin samafalayaasha abaalkooda ummadda rabbi waxa uula hadlayaa si aad iyo aad uu dareen gelinayo oo fidrada wanaagsan ama caqliga fiican ee abuurkiisii wanaagsanaa ku sugani uu aad u dareemayo markaa ilaahay ummadda ayuu ka xishoodsiinaya waxa uu leeyahay bal xishood oo iyadoo nebi maxamed uu baxay calayhi salaatu wasalaam oo rasuulkii ilaahay oo khalqigoo dhan ugu sharaf badan oo aanu dhowranin naf iyo maal iyo ehel iyo fadhi toona sidee bay naftiinnu idinku saamaxaysaa inaad sii fadhidaanoo halkaa idinku iska joogtaan nebigiina waa maqanya dareenkan isaga ah ee qur'aanku uu cabbirayo waxaan xusuusba u lahayn runtii xishoodka noocan aan lahayn nimankii munaafiqiinta ahaa ee markii ay doonayeen inay nebiga calayhi salaatu wasalaam ka cudur daartaan tilmaamayay inay markaa
cudurdaar leeyihiin ama reerahoodii ay dayacan yihiin markii layidhi soo baxana lahaa laa tanfiruu fi lxar kulaylka ha bixina waa kulushae qul naaru jahannama ashaddu xarraa waxaa markaa halkaa ka cad qofkii mu'min ahi inuu isagu sidaa aayaddu ay sheegayso u fikiray oo naftiisa aanu ka jeclaanaynta nebiga calayhi salaatu wasalaam abaakhaysama ninka la idhaahdo markii ciidanku dhexda sii socda soo noqday xaasaskiisiiyo madiine jooga ayuu ku soo laabtay iyo baylah jirtay dabeed waxa u yimi laba xaas buu lahaayoo iyadii oo ay rusheeyeen dhirtii nakhiishaha haadhkeedii oo laba cariisho oo wanaagsanna ay halkaa ka dhiseen raashin wanaagsanna ay u diyaariyeen ayuu yimid in yar markii uu joogay buu idhi halkan waad rushaysatay abaakhaysame haddii aad tay isagii baa isla hadlaya cariishyo wanaagsanna waad ka dhiisatay geed hadhkiina waad fadhidaa oo midhihiisu ay badan inay wanaagsan yihiin biyana waad haysataa nebi maxamedna waxa uu sii soconayaa bannaankaa iyo saxraaga iyo rafaadka dabayl badanina waa ku dhacaysaa arrintaasi munaasib ma aha dawna ma aha dabeetana waa kii ka daba tegey ee nebigu isagoo tabuuk jooga ayaa la yidhi ninbaa waddada soo socda markaasuu lahaa kun abaakhaysame noqo buu lahaa abaakhaysame ayuu noqday marka wuu xishooday sidaa ilaahay uu ku irshaadinayo u tilmaamaya addoomaha ummadda islaamkaabaa guud ahaan tan oo kale laga doonaya inay iyaguna xishoodkaa yeeshaan oo jihaadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intii la amray ee uu noolaa tobaneeyadaa sanaba uu fulinayay ee uu socodsiinayay haddii caalamulislaami ay meel iska dhigaan madaxdooda iyo maamulkooda ahlulxilli walcaqdigooda oo runtii uu noqdo wax ay gaaladu ilowsiiyaan ama kaga xoog bataan oo magaciisaba ay ka xanaaqaan taasi waxa ay tahay iyada oo xishoodkii la amrayay aanay la iman iyadoo nebi maxamed aanay jeclayn calayhi salaatu wasalaam iyadoo manhajkiisii ay ka leexsan yihiin bay noqonaysa walaa yarqabuu bianfusihim can nafsi waxa ilaahay uu tilmaamaya haddaba fawaa'idda ay ka helayaan jihaadka dhibaatooyinka ka soo gaadhaya inaanay keliya ahaynun dhib soo gaadhaya laakiin fiihi al-ajr dhib kastoo soo gaadha abaalmarin ay ka helayaan haraad kuma dhaca baa ilahay uhi damu waa haraadki nasabkuna waa tacab makhmasaduna waa gaajo meel kastoo istaagaan oo cadowga ka cadhaysiinaysa iyo dhib kastay cadowga gaadhsiiyaan intuba camal saalixa loo qoraya fi dama'i ajr wa fi nasabi ajr wa fi lmakhmasati ajr wakada albaaqi mid walba abaalmarin baa loo qoraya markaa meel ma istaagaan buu ilahay yidhi cadowga ka cadhaysiinaysa cadowga layshayee la dagaalamayo mar wal oo qofka muslimkii uu ka cadhaysiiyo ilaahay buu raalli gelinaya maxaa yeele ninkan gaalka ah ilaahay buu ka cadhaysiiyey wuu mutaystay markaa isagana in laga cadhaysiiyo qofka mu'minkaana in laga cadhaysiiyo waa la diiday iyada oo kaa gaalkaa laga farxinayo kaa gaalkaa iyadoo laga farxinayo in ilaahay laga cadhaysiiyaana waa xaaraan marka arrimuhu siday u kala horreeyaan iyo siday runtii u kala duwan yihiin in la ogaadaabaa laga maarmaana ilaahay waxau uhi walaa yunfiquuna ma bixiyaan nafaqatan sagiiratan wax bixin yar walaa kabiiratan iyo tu weyn walaa yaqtacuuna ma jaraan oo socodku ma gooyaan waadiyan meel dooxa ilaa haddii ay intaasoo arrimood mid uun sameeyaan kutiba lahum waa loo qoraa camal saalixa inay tahy liyajziyahum allaahu si ilaahay ugu abaaliyo axsana maa kaanuu yacmaluun wixii ay samaynayeen kiisii ugu wanaagsanaa oo ka ay jihaadka ka heleena waxaa ilaahay uu tilmaamayaa ummadda in laga imtixaanayo jidhka iyo nafti iyo maalka intaba markaa socodkaa iyo dhibkaa soo gaadhaya asxaabta ridwaanullaahi calayh ee ku soo gaadhaya jihaadka saxaraagaa ay marayeen iyo waxyeellada ay la kulmayeen inta oo dhan inay ilaahay agtiisa ka xisaabsanayd maalin ay u aayi doonaanna ay jirtay ku farxi doonaan baa ilaahay uu ku dhiirigeliyey oo ummadda ku hambaliyey waxaa kaloo rabbi uu ku hambaliyaynayaa ummadda waxbixinta ay sameeyaan iyo maalka oo door weyn ka ciyaaraya jihaadka iyo xoraynta cadowga door weyn ka ciyaaraya taasaa ilaahay halkan uu ku tilmaamay inay qiimo weyn leedahay aan la fudaydsan karinna waxbixin kastay sameeyaan dadka muslimiinta ahay taakulayn kastoo ay kaga qayb qaadanayaan cadowgaa waxyeelladiisa iyo ka hortagiisa waxbixintaasi ama ha yaraata ama ha weynaatee ilaahay waa u qoraya xataa socodkiibaa tallaabaday qaadaan loo qoraya
masaafada maalintaa la tegayay 610 kiilo bay ahayd Tabuuk marka Madiina laga tago meelahaas ay ahayd taqriiban intaas Ilaahay uu tilmaamaya sii socod iyo soo socod dagaalka inta ay ku jiraan tallaabooyinka ay qaadayaan inay Ilaahay wada tirsan yihiin aayadan waxa ammaan weyn ay ugu sugan tahay ugu horeeyo Uthman ibn Affan Abdurrahman ibn Auf waliya jannada lagu bushaareeyay ugu horeeya nabigu calayhi salaatu wasalaam minbarka ayuu fuulay maalinta ummadiisa aad u qiimaha badan buu gubaabinay waxa uu ku gubaabiyay jihaadka iyo inay wax bixiyaan oo dadku aanay waxba haysan dadkii tagi lahaa waxa muraaqaday dabeed Uthman ibn Affan radiyallahu anhu waxa uu markaa ku deeqay awr 200 ahaayo uu doonayay inuu Shaam raashin kaga soo qaado oo deestiidka wax lagu soo qaado bariga raashinka ayaa awrta ahaa 200 awr ayuu intuu istaagay buu 100 awr oo qalabkii lagu fuulayayna wata ayaan ku deeqay anigu nabi maxamedow markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam aad ugu farxay haddana wuu guubaabiyay mar labaad intuu minbarkii fuulay asxaabtii oo dhan oo wada jooga iyo dadkii baxayay kolkaasoo haddana Uthman istaagay oo waxa uu 100 awr baan haddana ku deeqay waa 100kii labaad buu haysan kari waayay haddana wuu ku celiyay oo waxa uu waxaan ku deeqay 1000 diinaar waa imisa 1000 oo gram oo dahab ah nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu dahabkii sidaa gacmaha ugu rogrogay ayaa wuxuu lahaa maanta kadib Uthman waxa uu sameeyo maba dhibaysaba dunuubta dambu galana Ilaahay waa kaga dhaafaya Abdurrahman ibn Auf baa isagana nabiga u yimid oo waxa uu lahaa 8,000 oo dirham baan haystaaye dee afarna reerkaan u haynaya afarna Ilaahay baan amaahi hambaliyada wanaagsan baa runtii ugu sugan asxaabta ridwaanullaahi calayhi walaa yaqta'uuna waadiyan meel ma jaraan socodkuma gooyaan ilaa kutiba lahum wala qara amalun saalix liyajziyahum Allahu ahsana ma kaanuu ya'maluun halkaa waxa aad ka arkaysaa runtii Ilaahay amarkiisa oo loo hoggaansamo iyo imtixaanka adoonka la marinayo oo ka soo baxo iyo waajibka sharciga ah la saaray oo sidiisa u guto in runtii ay tahay arrin aad iyo aad u weyn waxa kale oo aad arkaysaa fiqh al-haraki ayaa Ilaahay ummadda u baraya inay taxarruf yeeshaan iyo dhaqdhaqaaq diintuna ay u baahan tahay ficil iyo amal oo aanay ahayn darwiishnimo iyo khushuuc iyo dareento la isdareesiyo in masjid la fadhiyo ama meel lagu qalweeyo inaan ahayn taas Ilaahay halkan uu ku tilmaamay ay tahay wax nolosha la falgalaya nolosha akhlaaqdeedii iyo dhaqaalaheedii iyo siyaasadeedii iyo jihaadkeedii iyo intoo dhanba arrimii ku saabsanaa muaamalada dadka shisheeyaha iyo wax oo dhan inay wada khuseynaysa halkan Ilaahay uu ku tilmaamaya tabaaraka wa tacaala waana hadigii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda uu baray sida ay u dhaqmayaan diintoodana u fahmayaan khayrkuna waxa uu ku jiraa ka rasuulku uu yeelay calayhi salaatu wasalaam lamana oran karo adduunya horumartay ama isbedeshay maxaa yeelay qadiyadii manaahijta iyo mabaadidii la haystay sidii unbay kuwii baadilkaa meesha u taagan yihiin ilaa qiyaamaha sidii unbaanay xaqii uga soo horjeedaan insaankaa kaafirka ahayna waa kii uun waxaan isbedelada ah ee uu keenay ama imkaaniyaadkan ama duruuftan adduunyadii fududaysay dhibaatooyinkii adduunyada waxyaabaha fududeeyey waxaas wax ka bedelaya maaha qiyamkii dadka muslimiinta la doonaya inay ku socdaan laakiin waaba wax laga yaabo inay cadowga waxyeeladiisii kusii badiyaan haddii aanay ka feejignaanin runtii tawba kamida xaggeeda dambe ummadda islaamka Ilaahay waxa uu faray una soo qayaxay u soo cadcadeynay sida ay ula dhaqmayaan dadka shisheeyaha ah iyo cadowga dibadda iyaga oo runtii siyaasaddan ay tahay tii khaarijiga ahayd ama dibadda waa mid xakiimo ah oo caadil ah oo sugan Ilaahay baana yaqaana cid waliba halka ay dadka muuminiinta u jirto marka in qaarkood lala heshiin karo qaarkood ballan lala dhiganayo qaarkood lala dagaalamayo intaba quraanku waa soo sheegay jihaadkana Ilaahay ummadda waa ku soo abaabulay infiru khifaafan wa thiqalan idinkoo fudud iyo idinkoo culus babaxa ayaa aayadda hore uu ku soo yidhi
halkan haddaba rabbi waxa uu xusayaa arrin kalu raacinaya taa hore oo khaas yeelaysa. waxa ilaahay uhi wamaa kaana almu'minuuna dadkii mu'miniinta ahaa ma aha liyanfiruu inay baxaan kaafatan iyagoo dhan inay baxaan ma aha. falowlaa nafara min kulli firqatin qolo kasta muu ka baxo oo minhum mu'miniinta ka mida daa'ifatun qaybi may baxdo liyatafaqahuu si ay u fahmaan fi diini diinta si ay u fahmaan kuwa sii fadhiyaya waliyundiruu qawmahum iyo qoladooda si ay ugu digaan idaa rajacuu ilayhim marka ay soo noqdaan lacallahum yaxdaruun si ay u digtoonaadaan kuwaa yimid loo digaya. waxaa halkan ilaahay uu ku xusay tabaaraka wa tacaala dee laba cadow inay jiraan. cadow waa kaa gaalada ee qur'aanku uu soo tilmaamay in lala dagaalamo oo isaga seef baa lagala hortegaya intoo ciidamo loo ururiyo. waxyeeluu gaadhsiin karaa haddii aan sidaa la yeelin dadka muslimiinta ah naftooda iyo maalkooda iyo diintooda iyo waddankooda intaba. cadow kalea isaguna halkan jira oo kaa aan ka waxyeello yarayn, kaasina cadowgaa gaaladuna ay soo rakaabsadaan had iyo jeer ay isticmaalaan. waa cadowga la yidhaahdo jahliga, dadkoo jaahil ka noqda diintooda. markaa cadowgan jahliga laftiisa ciidamo suuliya oo meesha ka saara in loo sameeyo ayaa ilaahay uu ku tilmaamay aayadda. asxaabtuna laba qaybood ay isu qaybiyaan, qaar ay baxaanay jihaadka galaan, qaarna ay soo hadhaan oo cilmiga iyo waxyiga iyo fahamka xaqa ay sii sugaan oo nebiga ay ka sugaan calayhi salaatu wasalaam. ile nebigu marna wuu baxayaa ciidan ku hoggaaminaya, marna wuu joogayaa wuu soo hadhaya, manay badnayn intuu soo hadhi jiray. marka haddaba uu soo hadho dee aayaadkii iyo axaadiistii iyo wacdigii iyo xigmaddii iyo xalaashii iyo xaraamtii inta oo dhanba rag sii suga waa in la helaa oo kuwa soo noqday ha dhowto ay arday u noqdaan oo ay uga aayaan oo dabeetana sidaa la isu beddelo oo dadka labadaa cadow ay suuliyaan. markaa takhasusaadku inay jiraan waa lagama maarmaan oo qoloba meel ku takhasusto. midhka kale aynu ka fahmaynaa meesha waxa weeyaan la dagaalankii cadowga iyo jihaadka laftiisii ayaa cilmi u baahan. faham diinta la fahmo ayuu u baahan yahay. jihaadka laftigiisii baa fiqhi buu leeyahay, fiqha aljihaad oo runtii awlawiyaadkiisa iyo waxyaabaha sugan ee isbeddelayn iyo waxa mutaqayiraadka isbeddelaya iyo ahdaafta jihaadka laga leeyahay iyo cidda markaa jihaadka fulin kartae hoggaaminaysa iyo waxa oo dhan goortuu fardulcayn noqonayo goortuu fardulkifaayo noqonayo intoo dhammi cilmi bay rabaan. markaa cilmigaas in faham loo yeesho iyaduna waa midhka meesha ku jira wey. markaasaa ilaahay uu leeyahay ummadda dadka mu'miniintii inay wada baxaan maaha, laakiin qaybi ha baxo. firqadu waa intaa meel wada degan, daa'ifaduna waa qayb ka mid ah. markaa qola ha baxeen, qolana ha sii fadhiyeen si ay u fahmaan diinta. kuwaa markaa sii fadhiyey, hadduu nebigu baxayna kuwa raacay baa sii fahmaya, iyo si ay ugu digaan qolyahoodiio dee xalaashii iyo xaraamtii ay ugu kala sheegaan lacallahum yaxdaruuna si ay u digtoonaadaan. halkaa waxaaynu ka arki karaynaa masal jihaadkii haddii uu cilmi waayo, aqoon iyo faham diintaa uu waayo, fiqigiisii uu lumo, dee inxiraaf baa iman kara. dadku ay ka leexdaan wixii la doonaya in lagu xaqiijiyo. ilaa marka ugu horraysa dacwa ayaa lagama maarmaana, dadkan in loo yeedho lana fahamsiiyo, xaqa loo iftiimiyo. oo sayid cali markii uu nebigu diraya calayhi salaatu wasalaam uu lahaa gaalada la soo dagaalan, uu calanka u dhiibay iyo hoggaaminta ciidanka, waxa uu lahaa horta ogow inaad xaqa ugu yeedho. laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nacam. in ilaahay uu kugu hanuuniyo nin keliya ayaa geela cascaskaaga fiican. iyadoo cadowga la mari waayo adkaaday ayuu nebigu markuu dirayay la dagaalano sidaa u laamuu odhanina waxau idhi bal horta hidaayada inaad ku soo hanuunaysa ku dadaal. yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey qaatiluu la dagaalama buu ilahayni aladiina yaluunakum kuwa idinla xidhiidha oo midal kufaari gaalada ah, waliyajiduu fiikum dhexdiinna ha ka heleen khildatan qallafsanaan iyo adayg. waclamuu waxaa ogaataan anna allaaha maca almuttaqiin dadka ilaahay ka cabsanaya inuu rabbi la jiro. caalamkan ilaahay isaga abuuray,
bani aadamka ku dhooxa noolna dee wuu soo gelayaa uun qolana halkan ilaahay waxa uu ku abaabulayaa inay jihaadkaa qaadaan ay la dagaalamaan cadowga qaarna waa ka safan yahay rabbi dadka mu'miniinta safkooda ayaa ilaahay uu la jiraa markaasaa waxa uu leeyahay istaraatiijiyad ha yeesho dagaalka iyo awlawiyaad iyo meel aa ka bilowdaan iyo meel aa ku dhammaysaan markaa kolba ku weydi soo xiga ka bilaaba oo dee ugu horrayn waxaa loo bandhigayaa dacwadda iyo inay nidaamkan ilaahay adduunyada uu raalliga uga noqday ee uu doonaya inuu caalami noqdo nidaamkaa inay ku qanacsan iyo in kalaa la weydiinaya hadday ku qancaan ummadday la mid noqon hadday diidaan waxaa la leeyahay diintiinnaa iska haysta gaalnimada ahoo laakiin dee gaalnimo awood leh oo islaamka lagu waxyeeleeyo oo diinta nidaamkan lagu hor joogsado lama doonayee awoodda dhiga baa la leeyahay markaa taa haddii ay diidaan dee markaa waa lala dagaalamaya nebiguna waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam tan oo markii hore dee reer maka ayuu ka bilaabay dabeedna carabta intii xijaas haddana jasiiraddii carabta intaasoo dhammi markii ay ku soo gebagabowday dagaalkii xunayn la odhan jiray sannadii sideedaad ee aayaadkani ay soo degeen buu sannadii sagaalaad isu diyaariyey nimankii reer yurub ee shaam iyo xaggaa joogay inuu ku duulo sidii baanu dagaalkan suuraddani in fara badan ay ka warramaysa ee tabuuk la yidhaahdo ayuu ku tegey khildaha idinka heleen buu leeyahay ilaahay khildadu waa runtii qallafsanaan loo yeelanayo qofkaan u naxariisanayn ummadda islaamka qof aan ilaahay ka amar qaadanaynoo cadowa muxamedun rasuuluullaahi waaladiina macahu ashiddaa'u cala alkufaar ruxamaa'u baynahum fasawfa ya'ti allaahu biqawmin yuxibbuhum wayuxibbuunah adillatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin yaa ayuha annabiyu jaahid ilkufaara waalmunaafiqiina waglud calayhim nebigu waxa uu lahaa ana daxuuku lqataal sifooyinkayga waxaa ka mida inaan ahay mid u qosla dadka awliyada ilaahay oo weji furan qataal baan ahay mid kala dilaaciya maskaxaha dadka cadowga ah nebiyulmarxama wa nebiyulmalxama waa nebiga naxariistiisu ay aada ugu badan tahay dadka ilaahay uu raalliga ka yahay nebiyulmalxama weeye oo nebiga markaas cadowgana ku adag waa sifada la doonayo qofka mu'minkaa inuu yeesho weeye laakiin waxyeelladu waxa ay iyo nuqsaantu imanaysaa markay dadka muslimiinta ay noqdaan kuwa iyagu isku qallafsan ee isku adag ee qowl iyo ficilba wax naxariisa aan isu lahayn cadowgana u dabacsan una tartamaya balaayadu markaasay dhacday ilaahay waxau idhi waidaa maa unzilat marka la soo dejiyo suurad qur'aanka ka mid ah fa minhum waxaa ka mida munaafiqiinta man yaquulu mid odhanaya ayukum kiineebay zaadad hu u kordhisay haadihi suuraddani iimaanan kiineebay iimaan u kordhisay bay leeyihin ilaahay baa ka jawaabay su'aashooda fa ama aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey fa zaadathum iimaanan iimaan bay u kordhisay buuxo oo qanjaha jooga wahum yastabshiruun waanay ku bushaaraysanayaan qur'aankaa soo degee u soo kordhay wa ama aladiina fii quluubihim marad kuwa qalbiyaashooda cudur jiifo ee uu yuururo fa zaadathum waxay u kordhisay rujsan cudur iyo munaafiqnimo iyo shaki ilaa rijsihii munaafiqnimadoodii hore ku biirtay wamaatuu way geeriyoodeen way dhiban doonaan wahum kaafiruun iyaga oo gaalaaday godgeli doonaan halkan waxaa rabbi uu ku xusayaa dadkii munaafiqiinta ahaa iyo dareenka ay u leeyihiin qur'aanka dareenkoodaasi waxa weeyaan mid runtii innaba wax xagga anfaca iyo dheefta iyo khushuuc middaba aan lahayn dareenkoodu waxa weeye halkan aad joogtaan sideebaa uga fakataan ama aa uga takhallustaan si aan laydiin ogaanin marka qur'aanku uu soo degayo mararka qaarkood waxaa dhacaysa inay la fadhiyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam halka ay fadhiyaan waa goob aad u qaaliya waxyigii baa ku soo degaya khalqiga kii ugu sharaf badnaa ayaa fadhiyo rasuulullaahi moxameda qarnigii ugu fadli badnaa bay la joogaan waa goob la tamaniya in la fadhiyo laakiin iyagu halkaa marka ay joogaan ee aayaddii soo degtay maqlaan ayay erayadan qur'aanku ka warramay odhanaya intay sidaa u eegaan asxaabta amaba iyagu ay wada hadlaan bay leeyihiin war aayaddaasi way soo degtee inna wax iimaana miya idiin kordhisay
dee iyagii baa dareenka noocana qabo iimaan la'aan ku sugan markaa dadkii kalena sidaasay moodayaan ilaan iimaankii wuu siyaadaa daacaadku ku siyaadaa wuxuu ku nuqsaamaa macsiyada iyaga siduugan sii nuqsaamayay buu madhay ilaahay baa markaa waxa uu leeyahay dadka mu'miniinta iimaan bay u kordhisaa qur'aankana way ku bushaaraysanayaan waanay ku faraxsan yihiin waxyigu markuu ka joogsadana way ka murugoodaan markuu soo degana way farxaanoo dee nicmo u soo korodhay inay tahay bay gartaan liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana waxaa aayaadkaasoo dhan laga faa'iidaysanaya iimaanku inuu ku siyaado camalka saalixa ah oo ku nuqsaamo macsiyada bal naskii qolo saasuu iimaan u kordhiyey qolana rijsi buu ku noqday markaa rijsigu waxa weeye shaki iyo munaafiqnimo iyo dareen xun buu u kordhinayaa quluubtooda markaa qur'aankii iyo heesu hadday qofka iskaga mid noqdaan oo dareenkooda u kala duwanaan waayo dhadhan iyo macaansi iyo fikirna qur'aanka uu yeelan kari waayo marka la akhriyayo qof dee waxau runtii noqonayaa in cudur ku sii yahay ay tahayna inuu iskarto oo dib uu isugu noqdo ilaa waa ka ilaahay halkan kaga warramay subxaanahu wa tacaala ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu naga yeelo kuwa qur'aanka akhriya ee macnihiisa eega ee ku camal fala dhadhanna uu sameeyo darisku halkaa inoogu joogo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu